ayaan jeclaa waxa weeye marka ilaa maanta adinka ku faanay siyaasiyiintiina ku faanay inaad Ethiopian dalka adinku soo gelisay inaguna waxaan ahayn kuwii la dirirayay haddayna guud ahaan beesha hawiye kale ayna ugu dagaalka adkaayeen beesha mursade qabiilo badan oo kale hawiyaha dagaalamay laakiin mursade inta uga dhimatay xoreyntii muqdisho beel hawiye ka dhimatay ma jiro xaqiiqda marka laga waxa weeye adinku cali maxamed geediye sala cali jeelada socotay xilligii hogaamiye kooxeedyada hogaamiyaashiinu waxay hubka ka soo rarin jireen Ethiopia hatta oo la joogo waad aragtaan xasan sheekh inuu video gada bariyaha la wareejinayo waad arkaysaa Ethiopia saaxiib aan waa taas cadawga naga dhicinaysa dadka hadba meesha la rabo looma duwi karo maanta waxa la joogaa xilli umadu ay active tahay oo wixii shala aad tiri يعني laga daba geenayo shalay ayaa la Ethiopia waa walaahe cadawgeena naga celi dagaal ay nagula jira walaahe wacay ajal kuis maanta yaad u sheegay Ethiopia waa cadawgeena mid kale Ethiopia laga dirisay nalta waxa weeye wax badan ayaynu iska kaashanay marka xaqada laga hadlo Masar go'aamay anaga wax loo qabatay Masar maxaa iska kaashanay sidoo sana burbursan maxayna tartay mid kale Masar ma Soomaaliya inay u hiilisay halkaan u imaanaysa oo muslimnimo iyo walaalnimo inoogu timid ma Falastiin wax tarto oo wax kale haday weyso ma raashinka marka rafax baabuurta ay la taagantahay ma u gudbiso waxa weeye umadaha khaldin Masar danteeda u socota dalkeena inay gudto ayayna rabtaa anaga Masar oo wadaag ma nihin ciidan oo wadaagnahay Ethiopia waa cadawgeena ha ahaato iyaga oo wadaagna Ethiopiana anagu halkaasan ka taagan waxa weeye marka dhalinyarada la soo abaabay Afghanistan ee baraha bulshada qofkii xasan soo qaataba Ethiopiana taageeraysaa waxaan leeyahay intaad fikirtaan afkiin iyo adoogin dib u raaca qof Ethiopian la diriray ama ka soo horjeeday horta ma leedii maya kulligiin waxaad tin xabasho kalkaal waa leedin ogyahay siyaasiyiintiina waligood ku faan jiray Ethiopia inay walaalahood tahay Ethiopia hubka ka soo qaadan jiray Ethiopia maciin badi jiray laakiin annaga taariikhda laguma hayo hal qof oo kale la hawiye ah oo Ethiopia maalin maciin baday intaas waxaan ugu gudbayaa arrimaha Ethiopia iyo beesha abgaal oo baraha bulshada soo buuxisay si xasan u difaacda ku handadaysa Ethiopia la taageerta waaya digli marfla soo jeesto beesha digli marfla waxa weeye marfla digil anigu hadda qayl lama arkin waxa weeye baraha bulshada waxaan arkay iyagoo galfkooda ka qaylinay waxaan arkay dad aflagaadeynayo oo le waa Ethiopian maxuu ahayd taageer oo Ethiopia rabaaro Soomaali maaha waxa weeye arkaas waa khalad digil marfla waa Soomaali xabashi maaha waana walaalaheen Soomaali iyaga noo xiga sababtoo oo wadaag baan nahay daris baan la nahay hawiye iyo waxba kala ma aha hawiye waa digil marfla waa hawiye waxa weeye marka yaan waxba la siyaasadayn yaan maxuu ahayd xasan maxamed cali suubeesha hawiye khaldina wareerin waxa weeye dana gaar ah u leeyahay gurracan meeshaas wuxuu rabaa inuu geysto nin isaga ka amar qaata oo uu lafta garan ku bedelo wuxuu waa siyaasad baa la isku hayaa waxa weeye marka digli marfla beel hawiye shaatiga inta loo xirto xildhibaano hadlay aan noqliyo leeyahay xasaanada laga qaado war inta xasan yiri ka badan iyo xildhibaanadaas u leh Ethiopia waxa weeye wayna taageertay waxaan ognahay in aydiid ku duulay digli marfla iyo SNA oo muxuu ahayd gabdhahooda la kufsan jiray Ethiopian ku barigaas iyaga soo gurmaday Soomaalidu waxay tiraahdaa ninku dila ninkaaga ma shisheeyo ninka celiyana ninkaana xigo haddii anigoo walaalkooda oo ama habar gidir ama hawiyaba aan ku duulay gabdhaha ka kufsan jiray Ethiopian intuu garab soo siiyay hub iyo rasaas soo siiyay iga kiciyay labadeena yartiya xiga raali gelin laga bixiyay digli marfuu lagu sameeyay waxa weeye arrinkaas aad ayuu u mudan yahay ka fiirsi waa in la dhaqaa iyaga وين اللفوين وين العلادين هوية دقل مرفل يا هوية ضدي بس يا جاب هوية ما قهوية كل حاجة إمس هوية كل حاجة دقل مرفل أنا كر الله إمس إنه كل حاجة بقول حكم إمس سحول كر الله الدكان أو كو قارن محوه بيش يعني إمس الدكان قنصح ديره أو محوه تجيرد لك كو قارن جفوي كو وين بوا أنا قال جعل يهدي لك كل جهود إمس كجرت وحوي 50% دقل ونوكذا مرفله وهذا هوي مجر كيجا مركا أنيقا على يقدريا أو ضد كلا اللي يقدريا
iyaga laftirkooda hawiyaha sideedaba nimanka la yidhaha miriflaha ama raxweyntu waxay ka kooban yihiin dir daarood iyo hawiye waa jufooyin qabiiladaas ka tirsan oo iyagu hal urur samaystay oo haddii alla kuu rooyahay raxweyn la baxay sida xaqiiqda saas beriyaha waxaa arkay kuwa oo dhalinyaro ah oo miriflahaas oo taariikha beena qoraya oo la digilna hebel hobel ka hadlayda mirifla hebel hobel ka hadlayda waa laba wiil oo isla dhashay waxaas waxba kama jiraan digil nin la yidhaahdo iyo nin mirifla la yidhahdo ma jiro wadad isbahaysiya geegi marida saasaan ahay adinkaa dhahdiin runta baashaa laga sheego waa is ognahay maa dhowgama dhagayarida ceelkay hudinay maraysaa adinkaa hawiyaa adinkaa daarooda adinkaa dir ah intaasoo isu tagtay oo isku dara ayaadna tihiin umad soomaaliyeedna ka koobantihiin ugu dambayn laakiin waxaa weeye dhallinyarada baraha bulshada ku jirta ee hawiyaha colaadinaysa ee buunka yeerinaysa waxaan leeyahay daalimiin baa tihiin joojiya buunka aad yeerinaysaa hawiyaa nagu soo duulay hawiya kuguma duulin annagaa hawiye ah duulaankeenana ma ogolin cid idinku duuli kartaana ma jirto laakiin waxaa weeye bul quraan iyo adigu ha kawkawinoo waxaa weeye meeshan koonfur galbeed la yidhahdo waa maamulkaas annagaa ogol annagoo shabeellada hoose degan inaad madax noo ahaataan aad na xukuntaan dadka si wanaagsan ula dhaqdo maamulka laydinkuma haysto adinkaa iskale reer koonfur galbeed adinkaa u madaxa dadka xukuma laakiin maylanta aad ordaysaan joojiya riixaatir anoo dhahaa inaan shabeellada hoose ku noolaado adan ogolow ood ugu ixtiraamto weliba ilay buuxa kabaad ku eg tahay xaqda haddii laga hadlo buuxa kabaad ku eg tahay haddaad tahay muxuu ahatay mirifle haddaan ku yidhahdo buuxa kaba tag ka war soo dhibaato adugu aad ka talisay maaha ku dhihi maayee waxaan ku leeyahay siinka dheer iyo haddii alla kuu rooyahay meeshaan degmada madiine korkeeda maxaa dhahaa oo aad dhahdaan halkaasaan ku egna meeshaad doontaan ku ekaada dhulka maamul ahaan adinka wada hoos tagaa cidda halkaas ku noolna inaad adinku madax u ahaataan weeye dadka hawiyaha halkaas deganna aad taas ku ixtiraamtaan madaxtinimadiinana lama diidana laakiin haddaad sheekada bedeshaan dhahdaan dhulkan waa mayland qofaan may ku hadlayna ma joogayo hadda taasu sheekadii isaaqay noqonaysaa ee doqonnimada ahayd isaaqa ayaa nimankaas abtiyaashay harti ama dhulbahante gaar ahaan dhulbahantu muxuu ahaytay isaaqu dul fadhiyey maamulka isaaqa mabay diidanaynba oo somaliland way iska ogolaayeen laakiin dil buu kala dhammaan waayey bab ninka keliya ee nuuxsaday xabad ku dhuftaan ba war dilka naga daayo noo taliya na xukuma somaliland aan ahaano aan is ixtiraamno inuu dilka naga daayo maya somaliland haddaad diidaan dhulku somaliland weeye adinkaa guuraya war guuri mayno dhulkan annagaa leh annagoo hartiya oo deela ku yahay dhul bahantaa oo daaras waxaynan joogaynaa dhulka annagaa leh dhulka kuma lihidana laakiin maamul ahaan aan ogolnahay ilma adan reeyo dilka naga daayay kibirkii iyo futa kala qaadkii wuxuu dhalay futada in xabad laga geli oo isaaq la eriyo wax allaala wuxuu haystaan meesha looga furto waxaa weeye marka digli mirifle si gaara mirifle nimanka la yidhahdo buunka aad afuufaysan joojiya haddaad dhahdaan shabeellada hoose maylaanaa la yidhaha qofaan may ku hadlay mayla arree qofaan dhihin ma joogaayo haddaad dhahdaan buruxa kabaad tegaysa xaqu taasay noqonaysaa lidinma diidana walaalaheen aad tihiin na xukuma laakiin edab yeesha oo hana aflagaadaynina oo hanugu qasbeen in afmaay ku hadalna annagu waxaad leenahay intaas waay dhibkiinu waa na dhibaa dulmi in laydinku sameeyo ma ogolin etoobiya cidda dantiina aad ka aragtiin la macaamila sababtoo annagaa qiraynaba etoobiyaanku inay koox hawiyaa cidday doontaa ka noqotay idinku habsatay idinka kiciyeen oy garab iyo gargaar idin siiyeen innagaa qirayna waxay hawiya maanta raaligeli ka bixi SNA ku samaysay beesha mirifle ama raxaweyn oo la yidhahdo war raalli ahaada waxaas waxaa weeye jabhadaa samaysay annagu raalli kamaanan ahayne waxaa weeye walaalayaal ka raalli ahaada in la yidhahday mudnaayeen in la aflagadeeyo ma aha in etoobiya lagu tilmaamo ma aha iyaguna inay muxuu ahay dhulkan ay maamulaan dhahaan qofaan may ku hadlay kuwa noolaan karo waa khalad xoogaa yaroo qulqulataha ka jirta meeshaas gaal jecel iyo jufooyin adinkeeda ka mid ah isku haya gaal jecel waa dad meesha deganoo deegaan ah guura ayagana aad dhahdaan waa khalad adaa soo degay beledweynaha ka timid kan saas ma aha waxaas waxaa dadkii kala fogeynayaan in la isdilo oo la isnacay keenayaan ilma adan riyaal warku waxaan kusoo koobayaa digli mirflow tolkeen yaa tihin walaalihin yaa tihin annagaa digila annaga naftirkeena digil ah mursade 2000 ka hor waxaa weeye 2000 baasha qabyaaladii markii la keeno xaggaas macnaha saami ahaan u aaday xeerka digil innagaa ku jirno mursada digil yaa ah marka la yidhaahdo waxaa weeye mursada ka mid ah ma fahamta marka waxaa weeye shabeellada hoose saas lagu wada joogo nabadaas lagu wada joogo dadkana u taliyo xukuma laakiin asluub iyo edeb ummadda lagu xukumo
وحاوي أفلقتنا هل جوجيو يعني بين الشيء هوية نوصل دولة يعني الأورن هوية دولة دكوه ما يكون دولة كلام مجرى إنك عن أقولين ديدين ده ديل مرفل حق بيقوليهن دولكاس الحكومة كنا ولا عدة دورانا لما عملوا حقرنا السؤال أو حبيجيلي برنامج كيف أنت تكتب هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم.